الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha low saacadan oo kale ayaynu isugu yimi jirnay habeen kasta oo sabtiya saacadu markay tahay 8 ilaa 9 waxaanu markale hawada ku soo noqon jirnay iyadoo showgaad imika daawateen dib loo daawan jiray dadka miskareeyay maalinta Mondayda afternoon 1 to 2 waa kooda duhurnimo iyo ilaa 2 ayaa haddana markale showgani dibada ku soo noqdaa. waxa kale oo aan always idin sheegnaana waxaad naga daawan kartaan www.somtv.org waxa kale oo iyadana aad naga daawan kartaan www.scantv.org iyo channel 77 iyo channel 23 waa markaad haysataan Comcast cable-ka uu kugu jiro haddii uu kugu jiro satellite ama dish shaqo kuma laha kaas kama heli kartid inaad website-ka gasho mooyaane. marka waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkii Som TV waa saacadahan oo kale aan Mustafa idin oran jiray waxaad u sheegtaan neighbor-ka qaraabada iyo dadka kale ee usually na daawada ama always aan hawada isugu nimaadno fadlan xasuus way yartay weekii marka saacad soo galno inta dadka dhan wada xasuusto laakiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlay magaca Cabdi Kariin iyo Xabeeb oo always dhalinyarada isku soo tubarida barnaamijkan. haddaba waxaan jeclay inaan idin sheego bal showgeenu caawa sida uu socon doono iyo habkaan uu soo qaban qaabinay. waa qaybta hore waxaan ku horeyn doonaa horta waxa studio-ga noogu casuman xaaji waxa weeyaan Cali Xaaji Nuur Cabdi Nuur aligaho oo isagu ka soo socdaalay magaalada San Diego weekii horena aad wajigiisa aragteen oo u socda qaybta ama barnaamij la yiraahdo Hero oo isagu ah somalirelief.org oo wax badan ka qabtay wadankeena wax badan caawiyo. waxaan ku leeyahay ku soo dhaw Cali Xaaji barnaamijka. Thank you. علي هرم محو تاجنتي هرو waxay u taagan tahay Humanitarian African Relief Organization. وهرو HARO. Yes. oo macnaheedu yahay H the Humanitarian the African Relief the African R is Relief Organization. يا اسكالها ايديا sidaad sugu keenteen ama barnaamijkan somalirelief.org addresskiina waa ka sano malanaya soma www. Yes waxaan leenahay address ah haro.usa.org ama www.somalirelief.org labada website waa naga heli karaa ma sha Allah. ma sha Allah waa khair in sidaan la soconaba dad badan baa wax ururiya ama qurbaha ama dad wax caawiya wadankeena saa u caawiyaanba ama suuqa dhex istaagan ama masaajid ama meelo marka hay'adiinu si dawlad ahaan sida hay'adaha wax caawiyo kale ay ka register gareysantay wadankan. Yes hay'adan waxa weeyaan waa hay'ad State of California iyo waxay ka register gareyn federally labadaba ka register gareysan maxaa yeelay hay'adda waxa weeyaan wadankan sidaad la socotiin ma aha wadan aad wax iska aruurin karto unless aad haysato 501c3 waxay yiraahdeen oo hay'adaha cashuur dhaafka nabarka leh ma taqaan la siiyo. marka waxaan jeclay bal sida aad sheegteen hay'addu wax qabadkeedu muxuu yahay marka maxaa ugu weyn ee qabataan kullay baahi way jirtaa wadankii meel walba hay'ado badan baa jiro kala duwan oo halka ka sii deyn hadda koor baan sawiradiina qaar halka ka sii deynay ama envelope aad leedin baa jirto dadka lagu caawiyo lacag lagu rido bal waxaan jeclay wax qabadka aad qabataan muxuu yahay halka aad geysaan wadanka wax qabadka horta saddex wax la ka kooban yahay waxa kamid ah waxaanu qabanaa food medicine and shelter oo ah cunno dawo iyo hog ma la galo ama la hogto marka wax shelter ku yaqaanay afka qaldaad marka hay'adda waxay wax geysaa khaasatan Soomaaliya Africa oo dhan bay wax geysaa hase ahaatee Soomaaliya especially gaar ahaan Soomaaliya ayaan wax u geynaa. waan jeclay su'aashayda bal aan dib ugu soo noqdo laakiin waxaan ilaaway dadka inaan iskiin baro inaad tahay ninka chairman-ka ah ee Hero base-kiina waxa weeyaan San Diego California. marka intee shaqaalaha baad ku shaqaysanayd xukunta intee hay'adood ama wadamadee ayaad kala fadhidaan oo isla xiriidaan.
run ahaantii hay-adda 3 sano jirta way cusub tahay mataqaanaa si fiican ayay runtii usoo dardar gashay markii mataqaanaa aan bilownay ilaa haddeertaan shaqaale ahaan la hayar gareeyay ma badno laakiin volunteerada ayaa aad u badan waxaan leenahay mataqaanaa ilaa 500 oo member ah ما شاء الله 500 oo mataqaanaa hay-adda taageerto marka wadamo kala duwan bay wadamo kale joogaan Mareykanka ayaan sheegaya ilaa 500 oo member ayaa jira oo register garaysan oo contact la sameeyno la xiriirno marka wax idinku caawiya waxna nagu caawiyo ama dhaqaalo ama talo ama fikir wax alla wixii hayaan anagana runtii waxaan raadinaynaa ugu weyn waxa weyn fikirka dadka intellectualka ah inaan helno oo wax qabad joogto ah aan sameeyno hadii Ilaahay yiraahdo oo wixii noqdo waxaad meel kale laga soo arno wax sii jiro yani waxaad example hadan soo qaatay jaamacadaha Mareykanka ama mataqaanaa hay'adaha weyn oo United Nations rag ba asaasay mar laga joogo 100 sano haddana inay cusub yihiin baad u malaysaa anaga waxaan rabnaa foundation oo sii jiro oo dad dhalinyaro wax barto ilaa jiilka dambe ay dhaxlaan baan doonaynaa dad wax ku kooban dadka hadda asaas kale aad iyo aad runtii waa waxaad u fiican dadkeena waxaad moodaa qof markuu wax sameeyo inuu isagu calanka ku dhagay ama u shaayo laakiin waxa fikrada aad u sii fiican cali saad noo sheegtay cali xaaji in 500 oo qof runtii way badan tahay talada kule ama wax kule marka waxaan jecelnahay dadka iyaga daawanaya halkan bal inay qayb weyn ka sii geystaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo run ahaantii waxa weeyaan 500 waa inta volunteerada iyo dadka na caawiso hase ahaatee capacity waxaan leenahay ilaa mataqaanaa wadankii gudihiisa ah wadankii waxaa noola jooga mataqaanaa Muqdisho oo ah caasimadii Soomaaliya waxaa noola jooga Gedo kale waxaa la jooga mataqaanaa xafiisyadayna ka shaqeeyaan gobolada Bari waqooyi galbeed waxaad u malaysaa mataqaanaa Soomaaliya oo dhan inaan koobnay hase ahaatee insha Allah contactna waxaan ku leenahay hay'ado kale iyo aan mataqaanaa collaboration ka sameynaa wadankaas Soomaalida galbeed Ethiopia gudaheeda ah ma sha Allah runtii aad u faa xagga siyaasadda ka waran hay'adin wax ay dhex gashay ama sida Puntland Somaliland ama koonfurta waxa ka jiraba miyay jirtaa wax xiriir ay leedahay mise waa hay'ad madax bannaan oo humanitarian hor Ilaahay u shaqeynaysa absolutely hay'adan waxa weeyaan waxay ka madax bannaan tahay wax siyaasi la yiraahdo hay'adan waxa weeyaan waa hay'ad civilian ah waa hay'ad relief ah waa non profit organization NGO-yada ka mid tahay shaqo kuma aanan lihin wax siyaasi ah whatsoever siday rabtaa ahaato yani organization aan gaar ula safanahay ma jiro group aan gaar ula safanahay ama qabiil aan gaar ula safanahay ama dawlad aan gaar u raacsanahay ma jirto waa hay'ad alxamdulillah falillahi alxamdu dadka wada ay yihiin dad wada free from political wada ah ma sha Allah oo intellectual wada ah marka aad iyo aad baan runtii aan proud u nahay inaan saas ahaan